makiinadaha iyo mashiinada waaweyn ee waxtarka badan waa kuwo aad u horumarsan oo loo isticmaalo si fudud qabashada hawlo aad u waaweyn oo adag waxaana sidoo kale ay yareeyaan adeegsiga makiinadaha waqtiga lagu qaban lahaa hawlo badan haddaba maanta waxaan idin haynaa 10 ka mid ah makiinadaha ugu cajiibsan caalamka System Meister TC Content waa makiinad awood badan taasi oo loo naqshadeeyay loona sameeyay guurinta waxyaalaha aad ku culus sida qaadida gawaarida xamuulka waxaana laga hagi karaa makiinadan meel aad u fog waxayna awoodaa inay qaado culays dhan 50 tan makiinadan TC Content xabaareedu wuxuu gaaraa 5 kilomitir saacadii ayadoona ay u suurtagal tahay inay marto nooc walba oo wadooyin halis ah sidoo kalena waxaa loo isticmaalaa TC Content hawlaha dhismooyinka sida in lagu qaado waxyaalaha aad ku culus ee shamiindada iyo wixii la midka ah Roadzipper waa makiinad awood badan taasi oo loo isticmaalo in lagu qaado jidgooyaasha la dhigo wadooyinka dhexdooda waxayna hawsheedu tahay xambaaridda iyo dhigidda jidgooyaasha aad ku adag ee isku xiran oo culeyskoodu uu yahay 500 kilogram kuwaas oo la soo dhigo goobaha ay ka jiraan hawlo dhismo ayadoona sidoo kalena loo isticmaalo jidgooyaashan in lagu ciirigeliyo wadooyinka xilliyada ay ka jiraan rabshado magaalooyinka Watchan WR 250 waa makiinad loo isticmaalo in lagu garaaco dhulka gaar ahaan dhulalka carada adag iyo dhagaxaanta leh wuxuuna gaaraa culeyskeeda 30 tan halka awoodda xoogga matoorkeeda uu gaarayo 800 horsepower waxayna makiinadan WR 250 wadataa qalab awooda inuu garaaco dhulka 12,000 oo mitir laba jibaaran maalinkii ayadoona markiiba dhulka u qodaysa 50 centimeter 3 Spade waa makiinad dalacaad ah taasi oo loo sameeyay in lagu siibo laguna beero dhirta geedaha waaweyn makiinadan waxay leedahay nidaam hydraulic ah kaasi oo leh 4 afood oo ka samaysan macdan oo uu joogoodu gaarayo 2 mitir marka horena makiinadan waxay samaysaa inay ka qodo dhulka wareeg 1 mitir iyo bar ah oo uu ku hareeraysan yahay geedka kadibna ayay soo siibtaa geedkii ayadoo dalacaysa si loogu abuuro meel kale hawshaana inta ay ku jirto makiinadan 3 Spade wax dhibaato uma geysata geedka Venti Ideal waa makiinad horumarsan oo lagu falo beeraha taasoo loo sameeyay inay hawl adag u qabato qaab fudud oo isku dheelatiran waxayna makiinadan qaybteeda sare u gaaraa 12 mitir waxaana ay awoodaa inay qabato 1000 hawl oo jaritaan ah inta lagu gudo jiro daqiiqad oo kaliya ayadoo isticmaalaysa lagu heedo taayirada iyo mashiinka afkeeda hore ee wareega waxaana ay wadataa makiinada Venti Ideal haan qaadkeedu uu yahay 17,000 oo litir wuxuuna gaaraa xawaareeda ugu sareeya 40 kilomitir saacadii أو فراسان TV كون وماكينة lagu fogeeyay barafka taasoo loo sameeyay in lagu nadiifiyo xilliyada barafku uu ku soo da'o wadooyinka ama laamiyada garoomada diyaaradaha makiinadan ayaana leh shir sare oo laga hagi karo kaasi oo u suurtagelinaysa darawalka hagaha ah inuu arko lana aado meesha uu doono inta uu ku guday jiro hawshiisa waxaana u suurtagal ah inay suuliso saacadii oo kaliya 6,000 oo tan oo baraf ah una fogeysa masaafadan 45 mitir ayadoona makiinadan TV kun uu gaaraya xabaareeda ugu sareeya 60 kilomitir saacadii AMS 200 waa makiinad si gaar ah loogu sameeyay in lagu hagaajiyo wadooyinka qadadka tareenada makiinadan AMS 200 ayaana leh wiish gacan dheer oo wareegta taasi oo isku keenaysa biraha tareenka si ay isugu alxamto waxaana u suurtagal ah makiinadan inay dhameyso hawl walbo si dhameystiran hal mar oo ay marto oo kaliya ayadoona ay u sii dheer tahay hubinta qaybihii biraha ahaa ee si fiican loo alxamay Harvester 590E waa makiinad lagu jiro geedaha taasoo loo sameeyay inay si degdeg ah u diyaariso xididada geedaha waxayna wadataa makiinadan matoor uu awoodiisu gaarayo 300 horsepower ah wuxuuna gaaraa culeyskeeda 22 tan halka xabaareedu uu gaarayo 12 kilomitir saacadii waxayna awoodaa inay ka shaqeyso hawl walba oo laga qabto dhulka gacanta dheer ee makiinadan Harvester 590E ayaa ah mid gaara 11 mitir taasoo u suurtagelinaysa inay ku jarto geedo dhirkoodu uu gaarayo 20 mitir IHC Beaver waa makiinad xoogan oo wax lagu qodo taasoo loo sameeyay inay ka shaqeyso biyaha hoostooda sida goobaha takadaha iyo harooyinka yaryar ee gacan ku samayska ah marka hore waxay ka shaqeysaa makiinadan burburinta dhagaxaanta kadibna ayay ka soo saartaa maadooyinkii dheeriga ku ahaa si ay u noqoto guntaas heerkii loo baahnaa afka hore ee wareega makiinadan wuxuu gaaraa 3 mitir halka gacanta makiinada ee wareegta ay suurtagal tahay inay gaarto gun gaaraysa
18 mitir. Auxiliary Gutter Nautilus Mineralis waa makiinad lagu burburiyo dhagaxaanta waxaana loo isticmaalaa mashaariicda baaridda naaftada iyo gaaska dabiiciga ayadoon hawsheedu ka qabata gunta hoose ee badda. marka hore madaxa makiinadan ayaa la geeyaa meelaha hoose ee gunta badda oo ay adag tahay gaaritaankeed, kadibna ayay bilowdaa qodidda maadooyinkii ku hoos jiray waxaana ay kaga tagaysaa bartii ee hawsha ka haysay ayadoo diyaarsan si ay ugu suurtagasho makiinadaha kale inay si fudud u kulmiyaan maadooyinkii laga helay halkaas ayagoo u marsanaya tubo jilicsan. ugu dambeyntiina dhammaan makiinadihii aad ku aragtay muuqaalka daawade haddaba waatay makiinadii ugu cajiibsaneed ee aad ka heshay adi ahaanta noogu reeb fariintaada qaybta hoose ee fikradaha. fadlan haddaad ka hesho muuqaalka taawo badhanka ka helay ama like hana hilmaamin inaad kanaalka caalam subscribe saarto si aad ula socotid muuqaaladeena soo socda. halkaas ayaynu noogu egyahay muuqaalkeena la kulan dambe oo xiiso leh.